السلام عليكم دمان غير Soomaali meel kasto joogtiin channelka daawanaysa waa Nuruddin official please hadaan ugu cusubtaa subscribe kana saar channelkana sii share garay waxaan ka hadli doonaa farxad loo amra ku haysto farxad le amra haysto ninkaas kobtiis waa la soo helay wax qarqarisay waa lagu hayaa ninkaas runtiisa la soo helay runtiisana waxaan noo soo bandhigtay gabadha la yiraahdo Farxiya Kobayare oo runtiisa keenta banaanka ninkaas waa nin qurbaa ku soo wareeray nin Canada iyo America laga soo celsho waa kilibkan yar oo calaashan soo duubtay Farxiya Kobayare والله Soomaali marka lagu leeyahay waa hal qoys been ma ahaya qofa iswaalwaalay media uu soo galaya birq saanaan ahay aqoonyahana ahay waxaan bartay ma hasan ama aragtay aan ka imid ما أعرفتي أنا قطران هاي سنة قفا برم صوت هاي فرهيس اللي لكينا ورنيكي أفرطنا جيسها إسكني جاي أرتوانا حريها قحوتي إسك حادري حريها قحوتي قايل إسك حادري قربها نوكت قاليري ورير أمريكا أصل كيسي ري كندا أها ماشان ولا قد لو فيي سيد الله إيش شيء ولا مسافري مركا waxa ayaan daraa ninkaas waxa akhbaar laga sheegay foolxun oo dad personal u yaqaan wili waa dhaaranayna qaar kood leeyihiin walaalayaalo in gabdhii Soomaaliyeed masaakiinka xiriyaha qaxootiga jooga saa loola dhaqmo ilaa iyo 10 adanaya magacayga waxa Mar Xuseen Aadan xaajigaygu waxa isku guursanay 2015kii bishii afraad ma sha Allah waa ku faraxsanaa waan ku saaciday inuu xaasas kale ila soo guursado anaaba ku taageerayo wallahi inaan reerka la soo wada dhameystiro oo afarta uu xiro raaliyan ka ahay السلام عليكم magacay Farxiya Jaamac waaye ana waxa xaaskii labaad waan ku faraxsanaa gabdho kale inay iga daba imaadaan oo ku faraxsanaa ani xaajiga waxa isguursanay 2018kii وانا ku faraxsanaay wana ii sheegay inuu laba xas leeyahay caruur ay u joogto ma sha Allah sidaas aan ku soo galay inay mid iga dambeysana waa la ii sheegay ma sha Allah waan ku soo dhaweeyay waana ku taageeray waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo midee hadii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddex xaas hadii uu guursado oo awoodeeda ka soo bixi karo in lagu taageero ilaahay baa ku mahadsan isku imaashaha maanta halkaan isugu nimid alxamdulillah aniga magacaygu waa Naxwa Cabdicasiis guurkaygu wuxuu dhacay 2019kii bishii 10aad 25teedii October 25teedii waa dumarka iga horeeyay way ku faraxsanay xaqiiqatan sida aan dareemayo maxaa yeelay annagoo oo wax xiriir marka inaan museyga aan isqabin bay isoo wada xiriirinayeen dhamaantood dabcan qofku markuu ku soo xiriiriyo iyo markuu ku soo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhaxaysa labadaas marka ma sha Allah saddex inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin inay imaashayga ku faraxsan yihiin intaba waa la ii sheegay waana ku faraxsanaa markaan soo galay maadaama ay yihiin qoys faraxsan noloshooduna ay tahay nolol powerful dabcan anigana sidaas aan soo galay sida dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aad u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kala garab siiya caawiya dhinac walba family-gan waa family isku farax family-gooda isku faraxsan yahay ani tahay maxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garab banaani ma jirayso waxa jira bara bulshada in qoyskeena aad iyo aad loogu mashquulay anagana wax oo diinta ka baxsan ma nasuubin shacabkeena Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama anaka diiniyan wixii Ilaahayna fara aan suubina sunnada rasuulka aan suubina wax lagu mashquulo ma nasuubin marka shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dhiilahay tartiib ana laga dhaaf intana daawanayso share garay barnaamijkan haddaan ugu cusubtaan subscribe kana saar nala wadaag asxaabtaada waana ku mahadsantahay barnaamijka daawada